بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتنا داونيساي مeel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale barnaamij gaar ah oo aan ugu magacdarnay xalka dhibaatada Soomaaliya. Waa barnaamijyo taxana ah oo si gaar ah looga soo shaqeeyay oo idinkugu talagalay telefishinka Universal inaad si weyn uga faa'iideysan doontaan habeenada soo socda iyadoo xalka Soomaaliya in muddo ay dad badan ka hadleen hase ahaatee caawa waxaanu idiin soo gudbinaynaa warbixino wanaagsan oo ku saabsan barnaamijkaas. mawduuca looga hadli doono barnaamijkaas wuxuu noqon doonaa dadkayga iyo dalkayga maxaa dumiyey. 3 qaybood ayaanu u kala qaadi doonaa. qaybta ugu horeysa ayaanu caawa ka hadli doonaa iyadoo qaybta ugu horeysana ay noqon doonto bulshadeena iyo qaybta ay ku leedahay burburka Soomaaliya. qaybo kale ayaa inoo soo socda. waan filayaa isku day fara badan in laga sameeyay xalka Soomaaliya in wax uun laga sheego in markaa dhibaatada jirta iyo sida loo xallin karo. hase ahaatee caawa waxaan u malaynayaa in dad fara badan ay si weyn uga faa'iideysan doonaan barnaamijkan sida gaarka ah uga baxaya telefishinka Universal ee markaa aanu isleenahay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan si weyn bay u danaynayaan. haddaba barnaamijka muxuu noqon doonaa, yaa ka qayb gali doona, yaa ka hadli doona xalka Soomaaliya iyo barnaamijka mawduuca uu xambaarsan yahay caawa barnaamijka waxaa inoogu marti ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar. haddaba Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar waa nin caynkee ah. marka hore inta aanu doctorku ka hadlin barnaamijkan baaxadda leh ee caawa qaybtiisa koowaad aan idiin soo gudbinayno waxaan idiin soo gudbinayaa idinkoo raalli ah taariikh nololeedka Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar. Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar xilligan waxa uu yahay gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho. qayb weyna waxa uu ka qaatay muddadii uu dalka burbursanaa aasaasidda xarumo tiro badan oo dhinaca waxbarashada ah iyo hay-ado gargaar oo ilaa hadda ku baahsan dalka Soomaaliya oo dhan. doctorku waxa uu ka soo shaqeeyay meelo badan oo caalamka ka mid ah. waxaanu si gaar ah u xusi karnaa muddo 10 sano ah oo macallin ka ahaa jaamacadda la yiraahdo jaamacadda King Saud University oo jaamacad Malik Saud baa la yiraahdaa waxay ku taalaa magaalada Riyadh. dalka waxa uu ku soo laabtay Dr. Cali sanadii 1992 ilaa haddana waxa uu ka shaqeeyaa doctorka xarumaha gargaarka iyo qaybaha waxbarashada Soomaaliya. buugaag fara badan ayuu doctorku ka qoray xaaladda wadanka Soomaaliya. buugaagtaas waxaanu ka xusi karnaa runtii dad fara badan ay si weyn uga bogteen oo ay ka heleen macluumaadkii ku qornaa kitaabka la yiraahdo Macaalimul Hijriyati ila Ardi al-Habasha. waxaa kaloo uu qoray الدعوة الإسلامية المعاصرة في القرن الإفريقي. wuxuu sidoo kale doctorku qoray الصومال وجذور المأساة الراهنة. kitaabadaas runtii waxaan u malaynayaa dad badan oo akhristay inay ka mid yihiin dadka caawa fursadda u helay barnaamijkan inay ka faa'iideystaan iyadoo dad kalena aan u malayn doono inay kitaabada dib u arki doonaan. marka ugu dambeyntii Dr. Cali waa xaas leh 4 caruura iyo hooyadood. waxaan leenahay Allah u barakeeyo. mawduuca caawa aanu barnaamijkan kaga hadlayno waxa uu yahay dadkayga iyo dalkayga maxaa dumiyey ama maxaa burburiyey. runtii waa mawduuc aad u baaxad weyn. qof walba oo Soomaali ah oo na daawanaya markiiba maskaxdiisu way shaqaynaysaa waxbuu la soo boodaya oo ku fakarayaa. laakiin intaynaan annaga oo dhan wada fakarin marka hore aan dhageysano fakarka qiimaha badan ee doctorka oo aanu caawa ka sugayno. qaybta ugu horeysa ee barnaamijkan oo 3 qayb aan u qaybinay waxaanu caawa kaga hadli doonaa bulshadeena iyo qaybta ay ku leedahay burburka Soomaaliya. Dr. Cali ku soo dhawow Universal TV. waxaan u malaynayaa markii ugu horeysay ee barnaamij Universal TV oo baaxadan leh aad ka qayb qaadatid. inta badan dadku waxay ka arki jireen
iyadoo niyuusyada laleeyahay guddoomiyihii jaamacadda muqdisho dad badan waxaa laga yaabaa inaadan ku cusbayn aragti ahaan. marka doctore kusoo dhawow. marka ugu horeysa Universal TV aan kugu soo dhaweynaynaa. markii xigana mawduucan caawa aanu ka hadlayno runtii waa mawduuc baaxad weyn, marka wuxuu u baahan yahay saacado badan iyo maalmo badan iyo waqtiyo badan, laakiin waqtiga oo nagu ciriiriya darteed waxaanu ku siin doonaa in kooban 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo. marka inaad marka hore mawduucan noogu soo koobtid, kadibna daawadayaasha na daawanaya meel kastoo ay joogaan waxaan fursad u siin doonaa inay ditoorka wixii mawduuca uu ka hadlayo ku saabsan ay su-aalo ka soo weydiin karaan ama ay talooyinka bixin karaan. waxaa sidoo kale istuudiyaha noogu diyaara sida aad daawanaysaan aqoon-yahano reer London ah oo iyaguna wixii ay ka qabaan ama su-aalo ah iyagana aan markooda siin doono. waa mahadsantihiin daawadayaal. doctore kusoo dhow. aad baad u mahadsantahay. dhammaan waxaan u mahad celinayaa Universal iyo fariiqa ka shaqeeya, gruubka ka shaqeeya, dhammaan iyo ruux kasta oo iclaamka si nadiifa run ahaan uga shaqeeya. waxaan u mahad celinayaa dhammaan daawadayaasha adduunka daafihiisa jooga. waxaan isleeyahay waxaan ka wada qayb geli doonaa waa dood cilmiyeed, waan isku dardarsan doonaa mar kasta oo daban la raadinayo xalna waxaa dhaqana in wax la isku darsado. meesha aan la-aanahayna waxaan u malaynayaaba inaan wax isku darsano ayaa aad iyo aad u yar. marka la fiiriyo su-aasha ku saabsan dalkayga iyo dadkayga maxaa dumiyey, runaha waa meel culus weeye. aad uma jecli inaan kasii sheekeeyo oon aada u falanqeeyo burburkasi u dhacay iyo sarihiisa u dumeen iyo sidii loo kala cararay iyo sida adduunka dhan loogu firdhay. taa waxaan u malayn waxaa weeye dad baa iga kaafiyey, si xoog badan baa looga sheekeeyey. laakiin waxaan isleeyahay qeybta hadda oo aad iyo aad muhiimka u ah maxaa sal u ah burburka, qeybtaas ayaan maaragtay ayaan caawa si xoog badan insha allah habeenada ka dambana waxaan rajaynaynaa inaan uga sii gudubno, aan xalka usii dhadhawaano, iyari aan usii dhawaano. marar badan run ahaan marka arrinta Soomaaliya la isweydiiyo si dhib yar ayaa looga jawaabaa oo waxaa la yidhaahdaa qabyaalad baa burburisay, waxaa la yidhaahdaa dowlad baa burburisay, waxaa la yidhahdaa warlords baa burburiyey, iyo cid kastoo hub qaada baa burburisay. baac mushtariga mararka qaarkood waa lagu eedeeyaa, cid walba waa lagu eedeeyaa. dabcan dhammaan burburkan waxaan aniga isleeyahay meeshu ka yimid in aad la isula falanqeeyo ayaan maarata aniga caawa rabaa. habeenada ku xigtana waxaan rabaa inaan ula sii dhawaano si aad iyo aad u fiican. dabcan dhaawacayna gaaray aad iyo aad buu u wen yahay. 21 sano ayuu hadda socdaa. dalka nuskii markuu burburay waa loo soo yahay 1988 markii dhulka nuskii u burburay markaasaa laga soo bilaabayaa. marka 21 sano weeye. waxaan hubaa ardaygii markaa dhashay in ka midihii inay jaamacadda muqdisho qaarkood ka baxeen, waa hubaa jaamacaad kalena way ka baxeen, ama waxaa u laaban sano ama waxaa u laaban waxyar meelaha qaarkood. sidaasaa marka generation dhan ayaa waxaa la dhihi karaa dhibta ugu weyn ama khasaaraha u weyn meeshuu ka yimid waxaa la dhihi karaa waa meeshaas weeye. waxaa jira 21 sano ayaa meermeerto lagu jiraa xoog badan. 100,000 oo ruux ayaa qaxday, markaasaa malaayiin ay gaarayaan milyuun iyo ziyaado. markaasaa waxaa lagu qiyaasayaa dadka maanta banaanka jira ee bulshada Soomaali ka tirsan inaysan marna ka yarayn 15% haddii Soomaali la isku wada daro. dadka qaarkiid waxay leeyihiin waxay gaareen haddii la isku wada daro 20%. bulsho marka sidaas ah oo maanta ay jiraan hal qoys oo 5-6 ilmood leh oo 4 dal ama 5 dal ku kala nool oo ilmahoodii markay isu yimaadeen loo kala afceliyay ay jiraan. taban dhibaatooyinku aad iyo aad bay u badan yihiin. taban kumaakumka badr liqday, kumaakumka lama degaanka markay marayaan Liibiya iyo Suudaan iyo ay qaxayaan ee ku dhintay oonku dilay iyo masaska iyo waxaysan garanaynin, environment ayna garanaynin iyo meel garanaynin bay marayaan. qaarkoodna barafku wuxuu ku dilay Siberia iyo dhulka barafku aad uga dhaco Ruushka marka la isaga talaabiyo. inta kale in badanna waxayba ku dhamaadeenba jiro yar oo laga daaweyn karay haddii dad aan noqon lahayn, haddii aan dowlad lahaan lahayn, iyo haddii aan isxil qaami lahayn ayaa wada dishay. jiroon yar yaro oon adduunka hadda loo dhimanin sida asalka ah ayay u dhinteen. in kalena waxaa dilay dayac, tacliin la-aan baa dishay. in kalena shaqo la-aan baa dishay. marka laysku wada daro marka
dhibaatadu aad iyo aad ba u weyn tahay waxaan isleeyahay dhibaatada dhacday waxaa ugu khasaaraya guryaha dumay iyo jeedka dumay iyo magaalooyinka dumay ayaa ugu yar khasaaraha haddii la tiriyo laakiin waxaan u malay intay soomaalidu aad u xusan tahay waa guryaha dumay bay tiriyaan jeedkay tiriyaan inta beer la khasaare baa la tiriyaa laakiin guud ahaan marka la ururiyo waxaa khasaaray